gudoomiyaha golaha deegaanka Gabiley Mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo maanta kulan la qaatay xildhibaanada golaha deegaanka maamulka fulinta iyo waaxda shaqaalaha cashuuraha dawladda hoose ee degmada ayaa sheegay in go'aan ka soo saareen cashuuraha ardiyada dhulka isagoo fariin adag u diray shacabka ku dhaqan magaalada Gabiley in ay soo bixiyaan cashuurta ku waajibtay dadka haysta mulkiyada sharciga ah ee dhulka in maanta la bilaabo dardargelin cashuuraha baaqday waxaanu siinay haddana muddo 10 cisho ah maanta waxaan siinayaa halkan digniintii ugu dambeysay oo ah muddo 5 cisho ah in cidda ku soo bixin weyda cashuurta xaq lagu leeyahay laga qaadi doono talaabo sharciga waafaqsan sidoo kale dhulka bannaan aanu la wareegi doono oo noqon doono dhul dan guud ah oo aanu uga faa'iideyno bulshada dadka cashuurta dadka guryaha bannaan ama dhulka bannaan ka dhigtay banka ee diiday in cashuurtii xaq loogu lahaa bixiyaan isla markaana dhistaan waxaanu u sheegaynaa haday cashuurta soo bixin waayaan inuu dhulkaasi noqon doono dhul dawladdu leedahay sidoo kalena Maayer Amiin Cumar Cabdi waxa uu baaq u diray shirkadaha gaarka loo leeyahay isagoo ugu baaqay inay soo bixiyaan cashuuraha baaq uga dirana shirkadaha leydhka iyo isgaarsiinta oo u sheegayno bisha koobaad in cashuurtii taawarada iyo biraha magaalada ku dhex yaala iska soo xareeyaan suurtagal ma noqonayso inaanu hooyooyinka suuqa fadhiisanayana maalin walba ay soo bixiyaan cashuurtii lagu lahaa shirkaduhuna iyagoo ah dadka ugu dakhliga ugu badan ee shacabka ka soo galo inay ka warwareegaan cashuurtii xaq lagu lahaa waxaan iyagana u sheegaynaa inay bisha koobaad laga bilaabo ay soo xareeyaan cashuurta xaq lagu leeyahay maayarka caasimadda gobolka Gabiley Mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi waxa uu xusay inay qaadi doonaan olole ay ku baneynayaan wadooyinka xaafadaha ugu dambeyn waxaan fariin kale u diranaa dadweynaha ku xadgudbay wadooyinkii iyo town plan-kii magaalada ee u dhex degay si sharci darro ah inay ka sii xamaan urursadaan afarta xaafadood ee magaalada waxaanu ka bilaabi doonaa olole wada baneyna muddada ka horeysa inay ka sii xamaan urursadaan oo ay ka sii samaystaan qorshe runtii muwaadinna ka yeeli mayno inuu dhaawaco bilicda magaalada iyo quruxda magaalada Mukhtaar Nuux Ibraahim Home Cable TV gobolka Gabiley